بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. haddii eebba idmo berrito waxaynu u dabaaldegaynaa 35 guuradii aynu la soo noqonnay xorriyadeennii luntay 1 Juulaay 1960. 35 sannadood ma yara, laakiin waxaynu ka mid nahaynu maanta ilaahay uga mahadnaqaynaa cadowgana loo sheegayaa Somaliland inay Somaliland 35 sannadood iyadu wixii dowladnimo lahayd oo dhan ay gudatay, cid ugu manna sheeganaysa talo iyo xoolo iyo arrin midnabana aanay jirin. dowlado badan oo la ictiraafsan yahayna maanta inta ay Somaliland haysata qaabka dowladnimadu ma haystaan, qaar badan oo la ictiraafsan yahay. ma hadda waxaa iskale Somaliland oo dhan meel kasta ay joogaan, guda iyo dibad, ku yar iyo ku weyn, sheekh iyo shariif, dumar iyo rag, waa mahad ilaahay. maanta waxay ku soo beegantay 35 guuradu iyadoo adduunka oo ka socdo dagaal aad u culus oo adduunyada oo dhan saameeyey, oo dagaalka bariga dhexe. dagaalka bariga dhexe oo iminka muddo 2 sano ah socday, marka laga soo bilaabo markii loo xoog sheegtay Falastiinta aad loo xasuuqay iyo ilaa maanta oo la isku hortaagan yahay Iiraan iyo waad jiri may sida waxaan doonayeen iyo waan jirayaa waxba ka aqbalay ma ay taagan tahay. waa muddo 2 sano ku dhow ama ka badan. dagaalkaasi dadka uu saameynayo waxaanu ka mid nahay dowladaha ugu nugul. wuxuu saameeyaa siyaasadda, wuxuu saameeyey dhaqaalaha, wuxuu saameeyey nabadgelyada dalka gudihiisa iyo hareerihiisaba. markaa waxaynu ka mid nahay dalalka aan lahayn awoodo dhaqaale iyo siyaasad aad oo tixgeliyo markay dowladuhu isugu faanayaan xoogooda dhaqaale oo ka koobaada, ka siyaasadeed oo ka labaada iyo ka ciidanba. marka geeska Afrika isu muruq dhiganayo waxaynu ka mid noqonaynaa kuwa laga muruq badan yahay laakiin tala wanaagsan haya. dagaalkaas saameyntiisu waa badantay. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu dagaalka dhibaatadiisa dhaafiyo. markuu dagaalku dhammaadana inaynu guul ka helo mooya aan wax khasaare ah iyadoo muqaabara ay nagu yeelan. intaa kadib madaxweynuhu muddo dheer ayuu maqnaa. howlo badan oo qaranka u muhiima oo kama kacdihiina waxay sugayeen go'aankiisa oo ah mas-uuliyadda saaran madaxweynaha. howlaha badan ee qaranka halkan ku geli maayo, wuu u joogaa. waxaanse isaga ku odhan lahaa madaxweynaha inta aanad mar labaad noqon howlaha waaweyn ee go'aankaaga ku xidhan ee kama kacdada ah wax ka qabo, go'aan ka gaadh. waxaan xusi 2 arrimood oo intii uu maqnaa dalka ka dhacay. ta koobaad, waxaa jiray nin Somalilander ah oo ka mid ah madaxdhaqameedka Somaliland oo si gabasho la'aana u sheegtay inuu ciidamada qaranka u soo raacay cadowgii Somaliland waxyeeleynaya ee ay daafacayeen. wuxuu si cad oo dhiiran u faahfaahiyey qaybtii laxaadka lahayd ee uu ka qaatay dhibaatadii Somaliland loo geystay ee dhinac walba lahayd, naf iyo maal iyo siyaasad iyo wixii la mid ah inuu qaybta ugu weyn ku lahaana si bareedha ayuu u qirtay. ninkaa odaygii wuxuu ku faanay oo uu ku manno sheegtay inuu madaxweynaha maanta jooga isagu saaray oo gaadhsiiyey kursiga madaxweynenimada. wuxuu sii raaciyey inuu mar labaadna gaadhsiin doono
sababtoo ah inay iminka yihiin saaxiibbo siyaasadeed oo aada isugu dhow berita waxay noqonba mooyaane madaxweynaha waxaan kula talinayaan u soo jeedinayaa inuu ummadda reer somalilan la wadaago oo u caddeeyo mowqifka isaga oo madaxweyneha qaranka ah uu arrintaa ka taagan yahay waa lagaa sugayaa madaxweyne waayo waxaa ku xidhan qaranka halkaad ka taagto arrintaa saamaynteedu ku yeelanaya markaa caddayntaada waa la sugaya sababta aan u weydiinayaana waxaa weeye soomaalidu waxay tidhaahdaa afkaaga oo ku daafici waayey alla goobaa laydhaa arrintaasi madaxweynaha ayay u taallaa waana laga sugaya waxaan raacinayaa shalay iyo doraad arrimihii oo taceer gaabo ay ku saabsanayd ciidamada oo inaan hore u arag iyana waxaan ku talin lahaa in dawladdu dadaal badan iyo juhdi badan ku bixiso in la helo xal raandhiis leh oo arrimahaasi inaanay inagu soo noqnoqonin inaga xakameeya waayo waa arrimo cidhuxmadooda leh hadday kuwaas inagu furmaan ka igu dambeeya shicbiyo dawladba ha loo yeesho foojignaan iyo is-ilaalin tabaha faraha badan ee cadowga somalilan in inagu waxyeelayn karo dibad iyo gudaba mar labaad hambaliyo dhammaan somalilan sanad guurada 5 ilaahay idankiisa inagoo bashbashiyo barwaaqa oo intan ka horumarsanna hayna gaadhsiiyo sanadkaas sanadkiisa wasalaamu calaykum waraxmatullah